السلام عليكم وإذن سلام أصحابتك kusoo dhawaada muuqaal cusub halka igala socotaan waa Fihima Channel. Dhakhtarkani waxa uu inoo sheegayaa qaabka kaliya ee wajiga bes loo cayilin karo. Waxa uu dhahay uma baahnid inaad cunto fara badan cuntid, inaad jirkaaga dhan uu wada cayilo, uma baahnid in miisaanka uu siyaado, mana u baahnid inaad waqti fara badan gelisid. Waxa uu dhahay waxa u baahan tahay wax yar oo fudud. Muddo kooban ayuu wajiga kushkush qurux badan kugu noqon doonaa. Marka maxaan sameynaynaa? Gabarey haddii ku dhibto caato, gabdho fara badan oo wajigooda kushkusha haddii aad ka soo maseertay, maanta waxaan ku wadaa alaab cajiib oo wajigana ku qurxinaysa isla markaasna ku cayilinayso. Marka waxa u baahan tahay qamiir ama leebito. Qamiirka wuxuu u kala baxaa labo, midna waa mid qoyan oo dadka qurbaha jooga badana ay isticmaalaan, midna waa leebitada qalalan aad taqaaneen ee rootiga lagu darsan jiray. Marka leebitadii ayaa waxa ku dareysaa caano, waxaana sugaysaa ugu yaraan 1 saac. Banaanka ayaa dhigaysaa si fiican waa inay isku dhex gasho oo caanaha iyo sidoo kale leebitada ay si fiican iskugu milmaan. Kadib wixii aan ku dari doono gadaal ayaad ka arki doontaa. Marka dad badan ayaa wixii aaminsan yihiin haddii qofka uu rabo in wajiga uu cayiliyo kaliya inuu ku cayilin karo wax uu gudaha ka cunay. Macnaha qofka wax uu cunay in uu ku cayili karo. Ma aaminsano in wajiga bes la cayilin karo. Dhakhtarkan laakiin wuxuu inoo sheegay qaabka kaliya ee wajiga bes lagu cayilin karo inay tahay qaabkan. Marka gabarey haddii caato ku dhibtay, haddii wajigaaga uu yahay waji dhuuban, marka maanta ka faa'iideyso videogan isticmaal tijaabi. Sidoo kaleeto aniga dadkii isticmaalay ee tijaabiye ayaan ku jiraa. Runtii aad ayay u fiican tahay. Waana wadi doonaa, waan arki doontaan adinkana sida idin anfacdo. Sidoo kale mar sii horeysa ayaan soo geliyay bartida TikTok aniga oo sidaan oo kaleeta u sharaxayo leebitada iyo sidoo kale faa'iidada ee wajiga, gacmaha iyo lugaha u leedahay. Gabdho badan madaxa gacmaha saarteen waxayna i weydiiyeen soo ma noqonayso qofka wajigiisa in uu bararo ama uu markaasi uu cayilo. Anagu waxaan doonaynaa maxay aheeday wajiga caatada ayaan kobcinayna. Marka wajigu inuu kobco oo jirka uu isbedelo way dhacaysaa maadaama leebit aad isticmaalaysid. Marka muddo kooban u baahan tahay waqti badan uma baahnid alaabtan bis isticmaal. Marka qamiirkii iyo caanihii isku dhex milmeen isla markaasna 1 saac ku dhawaad ay banaanka yaaleen, waxaa ku darnay shumburo. Shumburo waa wada taqaanaan gabdhaha badana way isticmaalaan, gacmaha iyo lugaha ayaa loo isticmaalaa. Marka waa isku dareynaa. Haddii wajigaaga uu qalalan yahay, waxaa ku darsataa saliidaha aad isticmaashid, saliidii ku fiican ku darso, kadibna waa marsanaysaa. Haddii aad tahay dadka wajiga saliida leh, saliid kale ha ku darin, intaasoo kaliya ayaa isticmaalaysaa. Marka hadda si fiican inta isku dhex galaan, aniga waxaan ku darsaday saliid vitamin E. Vitamin E-ga runtii aad ayuu wajiga ugu fiican yahay. Dadka wajiga qalalan waliba inay kaligiis marsadaan aad ayay ugu fiican tahay. Marka adina haddii aad tahay dadka wajiga qalalan, ku darso saliid vitamin E-ga ama kaligeeda marso si wajiga ay kugu qurxiso. Marka soo tijaabi haddii wajigaaga uu caato aha, indhaha dhinacyadooda haddii aad god ka aheyd, labada dhaban ee wajiga haddii uu ka godnaa, haddii wajigaaga dhuubni fara badan aad ku aragtay, bal tijaabi natiijo fara badan ama muddo yar ayaa natiijo uga heli doontaa. Waana wax aad u fudud oo gurigaaga aad ka heli kartid. Uma baahnid inaad dhakhtar tagto in wajiga lagu kobciyo in daawooyin aadan garanayn lagu siiyo. Intii lagu siin lahaa dawo aadan garanayn, waxaa kuu wanaagsan inaad gurigaaga ku samaysatid alaabtan fudeedka ah, sidoo kalena wajiga ku kobcinayso. Soo marka isticmaal soo tijaabi. Sidoo kale haddaa u baahan tahay inay lugaha iyo gacmaha ay ku cayilaan, waad isticmaali kartaa. Hadda saliidii vitamin E-ga ku soo darnay, saliidaha kale ayaa jiro, dabcan midka aad haysato ku darso. Saliidda xulbada aniga badana isticmaalaa, ayadana waa idin soo geli doona faa'iidadeeda iyo sidoo kaleeto qaabka aad u isticmaalo iyo qaabka aad u sameysto. Sidoo kale saliidda laftirkeeda wajiga ayay cayilisaa. Marka saliiddas intaan gaarin ka hor qaybtan isticmaala oo waxaa sameysaan intaan shay isku darsada, kadibna wajiga sidoo idiin noqdo ila soo wadaaga qaybta commentiga igu soo qora faa'iidada aad ka heshaan iyo inta maalmood ee idinku qaadatay. Dhakhtarku wuxuu sheegay alaabtan inay garanti tahay in haddii aad isticmaashid wajigaaga laga sheekeynayo. Marka inta maalmood uu sheegay ma la hubaa in alaabtan ay wajiga kugu cayilinayso. Gabarey qaybta commentiga igula soo wadaag inta maalmood ee kugu qaadato in wajigaaga uu isbedelo ama uu kobco
ama uu bucbuc noqdo. Markaa jawaabta adigaa kaa sugayaa. Alaabti waa diyaar, wax badan iskuma darin. Waxaa isku darna waxaa waaye caano, shumburo, saliid fitamiin E-ga iyo sidoo kaleeto leebito ama qamiir sidaa u taqaanid. haddii qamiirka qoyan haysatidna isticmaal. waad mahadsantihiin. Videogeen intaanu ku egyahay videogan video ka duwan intaa ku kulmeyno. waxaa idin leeyahay nabadgelyo. muuqaalka noo sheer gareeya, sidoo kale asxaabtaada la sii wadaag. gabdho badan oo sidaadoo kale u baahan si uga faa'iidaystaan. waa mahadsantihiin sidaas iyo muuqaalka xiga intaa ku kulmeyno. waxaa idinkaga tagayaa nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.